maanta ayaa jaamacadda Camuud lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka qayb qaadanayaan jaamacadaha Camuud, Hargeysa, Golis, Burco, Muqdisho iyo Nugaal. kulankaasi oo u socon doona jaamacadaha kala duwan aqoon-yahankooda ujeedadiisu tahay tayeynta dhigista iyo waxbarista ee dhinaca maadada sayniska lagu barto jaamacadaha kala duwan. kulankaasi oo ay kaga wada hadlayaan 40 xubnood ee ka qayb qaadanaya muddada 10 maalmood waxa lagu lafaguri doonaa sidii loo hormarin lahaa jaamacadahaasi kala duwan, iskaashi wada shaqayneedna ay u yeelan lahaayeen. madaxa hay'adda Save the Children ee mashruuca Scott BS Ahmed Abakar ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankaasi iyo ujeedadiisa. kiiskii saddexaad ee maraya Scott BS oo sii socon doona ilaa macallimiinta dhammaantood la tababari doono iyo mustaqbalka macallimiinta cusub ee aqoonta la tababari doono. waxaan mahad gaaray iska markaa amdana ma ilaa markaa EC amida weero mashruuca 190 lacagtiisa bixiyay way tobanka kale markaa heedaha kale consortium-ka bixiyeen. waxaa isaguna halkaas ka hadlay Paul Martin oo ah madaxa tababarka ee hay'adaasi oo sheegay in tababaradu ay si fiican u socdaan. madaxa qaybta tababarada tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Maxamed Xuseen Cumay ayaa sheegay inay maanta kala faa'iideystaan jaamacadaha kala duwan, wuxuuna kula dardaarmay aqoon-yahanada ka qaybgalaya kulankaasi inay muddada uu kulankaasi ay ku guda jiraan ay soo saaraan qodobo waxtar u leh aqoon isweydaarsiga jaamacadaha kala duwan iyo wada shaqayntooda. gudoomiyaha jaamacadda Camuud waxa uu sheegay in siyaasadda iyo waxbarashadu ay kala duwan yihiin oo aqoontu aanay xuduud lahayn. ayuu Professor Salebaan Axmed Guuleed oo carabka ku dhuftay. kulankani oo ay ka qayb qaadanayaan 6 jaamacadood oo kala duwan oo afka Soomaaliga lagaga hadlo ayaa muddada u socda waxa lagu gorfayn doonaa sidii loo hormarin lahaa jaamacadahaasi kala duwan. waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama.